iyadoo guud ahaanba uu si rasmi ah maanta u soo gabagaboobay imtixaanaadka shahaadiga ee fasalada 8 ee dugsiyada hoose iyo fasalada 4 ee dugsiyada sare ee Somaliland ayaa guddoonka wasaaradda waxbarashada gobolka Saraar Jaamac Muuse Faarax waxa uu TV-ga Kalsan uga warbixiyay sida uu imtixaanaadku ugu soo gabagaboobay guud ahaanba gobolka Saraar. Gudoomiyaha waxbarashada gobolka Saraar waxa uu hoosta ka xariiqay in imtixaanaadku uu soo gabagaboobay si habsami leh iyo nabadgelyo. maanta waxaa noo soo gabagaboobay imtixaankii shahaadiga ahaa بريمريدي شربي جبوبين وأنا حرودين نبتقل يعني كحرودين كنا بدهن سكندرينا إن شاء الله ما أنتوا يسمونا جبوبين هذا دمانة يا سكندرينا ما أنتوا أيو دمانة يا جبوبين كدي بوحوي سنة قطع وعراوي إن شاء الله وحنا دمان كقبل وضي امتحانات كاسي قبل كسرار وحقبل وضي شوي نبتقليو وحنا كل ما ذي شوي نبتقليو dhammaan ardayda loogu tala galayna waa ka qayb gashay waxa idina kaba maqnaanin geesta kale ardaydu u fadhiisatay imtixaanaadka shahaadiga ee uu maanta u soo gabagaboobay ayaa dareenkooda uga warbixiyay TV-ga Kalsan waxayna sheegeen in imtixaanka ay soo diyaarisay wasaaradda waxbarashada Somaliland ahaa mid aad u adag bismillah xawayaan jamhuuriyadda Somaliland imtixaankeedu uu waa laakiin soo shaqayntii intii ficnadu waan ku shaqaynay si fiican oo shaqaynay tajid fiican ma rajayna waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa maamulahayagii macallimiintayadii badan oo in badan ka dhigaysay iskuulka waxaan leenahay ambal iyo wax wanaagsan ma soo barteen wax fiican baan rajaynaynaa imtixaankuna waxaan wasaaradda u sheegaynaa imtixaan aad iyo aad u adag buu ahaa dadka dambe ka qafiifay anagana naga dhigtay tacaduro imtixaanku runtii uu nagu adag yahay aad iyo aad baan u culus yahay runtii laakiin waa imtixaanka jamhuuriyadda Somaliland oo dhan laga qaaday nasiibka iyagana oo noqonaa wixii aan garanay imtixaanaadkii casharadii loo dhigi jiray aan ka garanay oo aan ka shaqaynay runtii imtixaanku waa imtixaan aad iyo aad u adag imtixaanku waa adkaa laakiin cadays badan baa la saaray insha Allah waxaan rajaynaa muddo fiican Yusuf Maxamed kana mid ah ardayda maanta imtixaanka uu soo gabagabeeyay dugsiga sare ee secondary aad iyo aad baan maanta u faraxsanahay halkan waxaan uga mahad celinayaa dhammaan wasaaradda waxbarashada ana aad iyo aad baan ugu faraxsanahay imtixaanka maanta uu soo gabagabeeyay dan ka hadlo ra'yigayga anaga fanfoorka sanadka maanta imtixaanaadkii u soo gabagaboobay waxaan leenahay guul baan rajaynaa imtixaankuna aad buu adkaa magacaygu waa maxamed cabdilaahi xasan waxaan ahay galaaska foonfoorka ee sanadka ka baxaankii si wanaagsan buu noogu socday si wanaagsan baanu noogu soo gabagaboobay si kastaba ha ahaatee ardayda sanadkan u fadhiisatay imtixaanaadka shahaadiga ee fasalada 8 ee dugsiyada hoose iyo fasalada 4 ee dugsiyada sare ee gobolka Saraar ayaa noqonaya ardayda ugu tirada badneed ee u fadhiisatay imtixaanaadka shahaadiga ee gobolka. Salabaan Cilmi Saciid, Salabaan Kiko, telefishinka caalamiga Kalsan, Aynaba.